soo dhawaada asxaabay maanta waxa idin soo koobi doonaa filim Faransiis ah oo soo baxay 2004 filimkan magaciisu waa They Came Back waana kan filimku ee daawo u taxadir filimku waxa uu ku bilaabmayaa magaalo ku taal Faransiiska magaaladaas oo dadkeedii dhintay ay ka soo baxeen qubuuraha oo ay soo noolaadeen iyadoo la garanayn sababta dhabta ah ee ka dambaysa arrinka dadka soo noolaaday waxay dhex socdeen wadooyinka magaalada iyagoo aamusan oo aan hadlayn halka dadka magaaladuna ay daawanayeen iyagoo yaaban dadkanu marba marka ka dambaysa way sii badanayeen waxa aanay xidheen dhammaan dariiqyadii magaalada inta kadib golihii deegaanka ee magaalada ayaa kulan degdeg ah isugu yimid si ay uga hadlaan arrinta soo food saartay magaalada maayirka magaalada ayaa waxa uu sheegay in dunida oo dhan ay xilligan soo food saartay xaaladan oo kale ilaa iyo haddana cidina may ogaan sababta dhabta ah ee ka dambaysa in dadkii dhintay ay dib u soo noolaadaan qiyaastii ugu horreysay waxaa lagu ogaaday in 70 milyan oo qof oo rag iyo dumarba isugu jira ay dib u soo noolaadeen adduunka oo dhan ilaa iyo xilligaasna tirinta dadka soo noolaaday way socotay magaaladooda oo kaliya waxaa la helay ku dhawaad 13,000 oo qof oo dib u soo noolaaday qulqulka dadka qubuuraha ka soo baxayay ayaa socday ku dhawaad 2 saacadood dhab ahaantiina dadkan soo noolaaday waxay ahaayeen dadkii dhintay 10kii sano ee ugu dambeysay kadib markii la tixraacay ciwaanka dadka soo noolaaday waxaa la ogaaday inay yihiin dad kasta leh laakiin in ka badan 65% ayaa ka weynaa da'da 60 jirka halka shay ay ka wada simanaayeen waxa uu ahaa inay dhammaantood ahaayeen dad caafimaad qaba oo aan wax cudur ah qabin xataa jirkooda kumuusan oolin xariijin yar oo nabar ah dawladdu waxay qorshaysay in dadkan la geeyo meel ay u hoydaan waxaana la geeyay hoolal waaweyn oo ay dawladdu leedahay maayirka magaaladu waxa uu sheegay in laga maarmaan tahay in la isu keeno dhammaan dadka soo noolaaday si loogu celiyo qoysaskooda maadaama ay yihiin muwaadiniin qaran oo xaq iyo xuquuq ku leh waddanka golaha deegaanku waxa uu soo saaray amar ah in dadka soo noolaaday aysan u soo bixin dibadda oo ay ku jiraan hoolalka la keenay muddo 3 ilaa 6 bilood ah waxaana la diyaariyay dhammaan hoolalkii loogu talagalay dadkii soo noolaaday waxaana loo kala saaray lab iyo dhadig dhalinyaro iyo dad waaweyn shakhsiyaadkii soo noolaaday waxaa ka mid ahayd xaaskii maayirka magaalada oo lagu magacaabo Martha gabadha ayaana u soo kaxaysay guriga laakiin maayirku uu diiday in xaaskiisa soo noolaatay ay guriga soo gasho waxaana uu sheegay in lagu celiyo hoolkeeda xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo lagu magacaabo Isham ayaa maayirka weydiiyay wiil yar oo uu dhalay oo ka geeriyooday dhowr sano ka hor laguna magacaabo Slefian laakiin maayirku waxa uu u sheegay inuu wiilkiisa ka soo raadiyo hoolalka ay joogaan dadkii soo noolaaday inta kadib Isham iyo xaaskiisa Finikoy waxay aadeen hoolalkii ay joogeen dadkii soo noolaaday iyagoo raadinaya inankoodii yaraa markii ay gudaha u galeen hoolka waxay arkeen dad badan oo soo noolaaday oo la wareysanayo dadka soo noolaaday waxay u muuqdeen dad mahsan oo aan wax dareen ah siinin dadka wareysanayay Isham iyo xaaskiisu waxay sawirka wiilkooda tuseen mid ka mid ah mas'uuliyiinta goobta iyagoo ka codsanaya in loo soo helo wiilkooda mas'uulku waxa uu sheegay in wiilkooda yar loo keeni doono goordhow waxaana uu sheegay in ikhtiyaar u leeyihiin haddii ay ka xaysanayaan wiilkooda iyo haddii ay kaga tegayaan hoolka inta kadib wiilkii yaraa ayaa yimid waalidiintii ilmaha yar dhalay aad ayay u naxeen markay arkeen wiilkoodii geeriyooday oo dib ugu soo noqday dhinaca kale waxaynu aragnaa maayirka magaalada oo xaaskiisa soo noolaatay kula kulmay meel kayn ah waxaanay ula hadashay sidii qof aanan weligeed dhiman waxaanay ku canaanaysay sababta uu u soo daahay dhanka kale waxaynu aragnaa gabadh lagu magacaabo Rachel oo joogta gurigeeda waxaanay rumaysan la'dahay arrinka in ninkeedii uu dib u soo noolaaday ninkeeda soo noolaadayna waxa uu 2 sano ka hor ku dhintay shil baabuur maalinimadii xigtay Isham waxa uu Rachel u sheegay in wiilkiisu uu dhaqmayo sidii uu u dhaqmi jiray dhimashadiisa ka hor waxaana uu sheegay in wiilkiisa yar aanay waxba iska bedelin waxaana uu Rachel weydiiyay in ninkeeda Matthew ay guriga keenayso iyo in kale Rachel waxay u sheegtay inaanay ninkeeda soo noolaaday aysan ku soo celinayn guriga inta kadib waxaynu aragnaa golihii deegaanka oo shir yeelanaya waxaanay ka doodayeen arrimaha shaqo la'aanta jirta iyo burburka dhaqaale ee deegaanka dhanka kale dhammaan dadkii soo noolaaday waxa loo fasaxay inay ku noqdaan shaqooyinkoodii hore laakiin arrinka dhibka keenay waxa weeye in dadka soo noolaaday ay yihiin kuwa gaabis ah oo aysan u shaqaynayn sidii ay u shaqayn jireen dhimashadoodii ka hor waxay xildhibaanadu ka doodayeen dhibaatada ay la kulmayaan dadka soo noolaaday iyagoo sheegay in dadka soo noolaaday ay la ildaran yihiin hurdo la'aan iyo suuxitaan joogto ah waxaanay xitaa sheegeen in dadkaasu ay habeenkii wareegaan wadooyinka iyadoo aan la garanayn sababta ay la wareegayaan laakiin waxa kaliya ay ku fiican yihiin waxa weeye inay shaqadooda ku fiican yihiin gaabisba ha iska ahaadaane inta kadib waxaynu aragnaa Matthew soo noolaaday oo ku soo noqday shaqadiisii nashqadeeyaha ahayd
laakiin Matthew waxa wajigiisa laga dareemayay caajisnimo. Sidoo kale waxaa lagu arkay dabeecad ah inuusan dadka la hadlayn ilaa isaga lala hadlo mooyaane. Dhanka kale Rachel weli isku maysan dayin in ninkeeda soo noolaaday ee Matthew ay guriga ku soo celiso. Golaha deegaanka ayaa mar kale isu yimi iyagoo ka hadlaya dhibaatada dadka soo noolaaday maadaama ay habeenkii u baxaan kaynta si ay u kulmaan oo ay shir u yeeshaan. Goluhu waxay sheegeen in dadka soo noolaaday ay habeenkii u soo baxaan si ay u yeeshaan shir iyaga u gaar ah oo aanay cidna la ogeyn si ay dhibaatadan uga hortagaan. Dr. Garrett ayaa soo bandhigay daawo hurdo ah oo u gaar ah dadka soo noolaaday. Dhanka kale doctorku waxa uu waardiyaha ku tababaraya qaabka uu u celin lahaa dadka habeenkii baxaya. Doctorka iyo waardiyuhu iyagoo wada hadlaya ayaa waxay arkeen Matthew oo labisan oo dibadda u soo baxaya. Waardiyihii ayaa waxa uu doctorka u sheegay in Matthew uu habeen walba hurdada ka kaco oo uu kaynta aado. Doctorku waxa uu isweydiinayaa sababta uu Matthew habeen walba kaynta u aado. Intaa kadib doctorku waxa uu dabagalay Matthew waxaana uu beerta ku soo arkay dadkii soo noolaaday oo shir isugu yimi. mid ka mid ah waardiyaasha ilaaliya beerta ku dhex taal kaynta ayaa doctorka u sheegay in dadka soo noolaaday ay habeen walba halkan ku shiraan. Maalinimadii xigtay Rachel waxay ka timi shaqadeedii iyadoo gurigeeda u sii socota ayaa waxay aragtay ninkeedii soo noolaaday ee Matthew oo daba socda. Rachel way istaagtay wayna eegtay laakiin lama aanay hadlin ee waxay iska sii wadatay socodkeeda halka Matthew uu iska daba socday iyada. Rachel wali waxay rumaysan laadahay in ninkeedii dhintay uu dib u soo noolaaday. dhanka kale maayirkii magaaladu waxa uu qaban qaabinaya xaflad uu sameynaya xaaskiisii soo noolaatay laakiin qoysku iyagoo cashaynaya ayaa waxay arkeen islaantii oo hadalkii joojisay cashadiina ka kacday una socota dhinaca beertii ku dhex taalay kaynta. Diktoradii islaanta ayaa maayirka u sheegtay in islaantu maalintii oo dhan aysan fadhiisan oo ay dhex wareegaysay daaradda. maayirkii ayaa waxa uu dhaqaaqay dhinaca islaantiisa si uu ugu soo celiyo miiska cashada laakiin islaantu lama aanay hadlin waxaana iska sii wadatay socodkeeda. dhanka kale Rachel iyo ninkeedii soo noolaaday waxay u muuqataa inay isfahmeen wayna sheekaysanayeen habeenkii. Diktoorkii waxa uu daaqada ka qashiyay iyaga si uu u daraaseeyo in Matthew uu dhaqmay sida dadka caadiga ah iyo in kale. dhanka kale waxaynu aragnaa golihii oo shiraya. gabadh ka mid ah gudida ayaa waxay sheegtay in dadka soo noolaaday ay leeyihiin heerkulka hooseeya heerkulka dadka caadiga ah waxaanay daawanayeen muuqaaladii laga soo duubay dadka soo noolaaday si ay cilmi baadhis ugu sameeyaan. goluhu waxa uu go'aan ku gaadhay inay kaamirada ku xidhaan buufin si ay ula socdaan xaaladaha magaalada iyo arrimaha ku saabsan dadka soo noolaaday. ujeedkooda ugu weyn waxa uu ahaa si ay wax uga ogaan lahaayeen kulanka habeenlaha ah ee dadka soo noolaaday iyo waxa ay ka qabtaan xaafadaha magaalada habeenkii. waxaanay cilmi baadhis ku ogaadeen in dadka soo noolaaday ay dhex socdaan xaafadaha magaalada ayna daboolaan masaafo dhan 9 mayl. waxaanay ku kala tageen shirka iyagoo sheegay inay isku soo noqon doonaan markii ay xog badan ka helaan dadkaas. maalinimadii xigtay waxaynu aragnaa Rachel iyo ninkeeda oo ku soo qubaystay haro yar. Rachel waxay eegaysaa Matthew iyadoo weli rumaysan la in ninkeedii 2 sano ka hor dhintay uu dib u soo noolaaday. dadka soo noolaaday ee ku jira harada ayaa waxa laga dhex aqoonsan karay dadka kale ee caadiga ah maadaama ay yihiin dad u adkeysan karay qabowga biyaha si ka duwan dadka caadiga ah. Rachel iyo ninkeedu waxa isla goobtaas kula kulmeen Dr. Garrett waxaana uu doctorku Rachel u sharaxay dhaqanka Matthew isagoo u sheegay inuu ka soo kabsanayo wixii soo maray. habeennimadii Rachel waxay maqashay sanqadh waxayna u soo baxday banaanka waxayna aragtay doctorka oo banaanka taagan. Rachel waxay doctorka weydiisay sababta uu gurigooda u hortaagan yahay waxaana uu sheegay inuu rabo inuu wax ka ogaado xaaladda Matthew iyo dhaqdhaqaaqiisa. waxaana uu weydiiyay in Matthew habeenkii soo tooso oo uu kaynta aado iyo in kale. Rachel waxay doctorka u sheegtay in ninkeedu uu caadi yahay oo uusan habeenkii meelna aadin marka laga reebo in hurdadu ku yar tahay mooyaane. intaa kadib doctorkii uu iska tegay kadib markii uu ogaaday xaaladda Matthew. Rachel markay ku soo laabatay qolka waxay aragtay Matthew oo soo jeeda waxaana uu weydiiyay in qof la hadliyay iyada iyo in kale laakiin Rachel been ayay u sheegtay iyadoo u sheegtay inaanay cidna la hadlayn. maalinimadii xigtay Matthew waxa uu yeedhay madaxdiisii shaqada waxaanay ka wareysanayeen shaqadiisa laakiin waxay ogaadeen in Matthew aanu caadi ahayn xitaa markii ay u sheegeen khaladaadkiisa ku saabsan shaqada waxa uu ahaa mid dafira. intaa kadib madaxdii shaqadu waxay Matthew u gudbiyeen qaybta farsamada ee shirkadda halkaas oo ay ka shaqeeyaan dad kale oo isaga la mid ah. dhinaca kale golihii deegaanka ayaa waxay ka doodayeen habdhaqanka dadka soo noolaaday waxaanay sheegeen in dadka soo noolaaday ay u dhaqmayaan sidii ay u dhaqmi jireen dhimashadoodii ka hor. waxaanay sheegeen dhibka kaliya ee haystaa inuu yahay inaanay sidoodii hore oo kale u shaqayn karin. habeennimadii Matthew waxa uu soo xidhay dharkiisa waxaana uu guriga ka soo baxay iyadoo aysan xaaskiisa ogeyn.
waxaana uu soo aaday dhinaca kaynta. Dhanka kale doctorku waxa uu dhageysanayay arrimaha ay ka sheekaysanayeen dadka soo noolaaday waxay daawanayeen khariirada magaalada, waxaanad moodaa inay mishin ka fulin rabaan gudaha magaalada. dhanka kale wiilkii yaraa ee Ishaam ayaa waxa uu soo toosay saq dhexe, wuxuuna isku dayay inuu ka baxo albaabka, laakiin hooyadii ayaa soo qabatay intaanu bixinba. waalidiintu waxay aad uga warwarsan xaaladda inankoodu ku sugan yahay, maadaama macallimiinta iskuulku ay u sheegeen in inankoodu uu ka cabsanayo carruurta yaryar ee kale oo aan waxba baran karin. waxaanay macallimiintu ka soo eriyeen iskoolka, waalidiintiisana waxay kula taliyeen inay iskuul kala geeyaan bal inuu caadi noqdo. hooyadii wiilka yar dhashay ayaa ilmaysay hadda, iyadoo sheegtay in wiilkeeda yar aanu ku soo noqonayn sidii uu ahaan jiray dhimashadiisa ka hor. dhanka kale xaaskii maayirka ayaa isku dayday inay ka baxsato guriga, iyadoo isku daysay inay gidaarka ka booddo ayaa waxaa joojiyey maayirkii. maalinimadii xigtay maayirku waxa uu arrinta xaaskiisa uga sheekeynayay Rachel ayaa iyaduna u sheegtay in ninkeedu uu xalay ka baxay guriga si uu uga qayb galo shir ay lahaayeen dadkii soo noolaaday. habeennimadii markii la gaadhay, dhammaan dadkii soo noolaaday waxay ka soo baxsadeen guryahooda, waxayna isugu yimaadeen hal meel, laakiin ma jirin hal qof oo ogaaday arrimaha ay ka shirayaan dadkaasu. Rachel waxay u tagtay Dr. Garrett waxaanay ka codsatay in ninkeeda lagu soo celiyo sidii uu ahaan jiray dhimashadiisa ka hor, laakiin doctorku waxa uu sheegay inaan ninkeeda lagu soo celin karin sidii uu ahaan jiray, waxaana uu sheegay in ninkeedu ka yara fiican yahay kuwa kale ee la midka ah maadaama uu xasuusanayo waxyaabihii uu la soo kulmay dhimashadiisa ka hor. doctorku waxa uu Rachel tusay muuqaal lagu wareysanayay ninkeeda maalintii uu soo noolaaday, isagoo sheegay in xaaskiisa ay ugu dambeysay 2 isbuuc ka hor, isagoo 2 sano ka hor geeriyooday. Rachel markan way ka samirtay rajadeedii ahayd in ninkeedu uu caafimaadi doono. dhinaca kale waardiyihii ayaa waxa uu arkay Matthew iyo dad kale oo u socda dhinaca beerta, wuxuuna ku amray inay iskaga tagaan meesha. laakiin isla markiiba waxaa dhacay qarax weyn oo ka dhacay meel u dhow iyaga. isla habeenkaasna dhammaan dadkii soo noolaaday waxay magaalada ka fuliyeen qaraxyo dhowr ah, dhammaantoodna waxay wareegayeen wadooyinka magaalada. maayirkii ayaa waxa uu soo kaxaystay baabuur kadib markii loo sheegay in xaaskiisu ka maqan tahay guriga, waxaana uu soo raadiyey xaaskiisa si uu ugu soo celiyo guriga. waxa uuna ku arkay dariiqa iyadoo la socota kooxdeedii, waxaana uu soo qabtay iyadii, waxaanu isku dayay inuu baabuurka xoog ku geliyo, laakiin dadkii kale ee soo noolaaday ayaa ka hor istaagay inuu kaxeeyo. islaantii waxay odageeda weydiisay inuu daalan yahay iyo in kale, laakiin waxay aragtay inuusan wax jawaab ah siinayn maadaama uu mar hore naf baxay. islaantii aad ayay u faraxday markay ogaatay in ninkeedu uu geeriyooday, goordhowna uu ku soo biiri doono kooxdooda. isla markiibana waa uu soo toosay, waxa uuna ku biiray kooxdooda. dhanka kale Ishaam wiilkiisii yaraa ayaa isku dayay inuu baxsado oo uu tago kooxdiisa. hooyadii ayaa fasaxday isaga, balse Ishaam ayaa diiday in wiilkiisa uu u fasaxo bannaanka. intii ay wada hadlayeen, wiilkii yaraa waxa uu aaday barandada dabaqa labaad, waa uuna ka booday, waxa uuna ku dhacay dhulka iyadoo aanay dhib soo gaadhin, waxaana kaxeeyey nin ka mid ah kooxdiisa oo bannaanka ku sugayay. intaa kadib ciidamadii booliska ayaa la howlgeliyey si ay u wajahaan dadka soo noolaaday, waxaanay ciidamadu dadkii ku buufiyeen sun kiimiko ah taasoo keentay inay dhammaantood wada dhintaan. dhanka kale Matthew waxa uu aaday xaaskiisa Rachel, waxaanu u sheegay inuu soo xasuustay maalintii uu shilka ku dhintay, waxa uuna u sheegay inay weliba maalintaa iyagu istagaalsanaayeen. sidoo kale waxa uu sheegay inuu guriga yimi markii uu waayay, iyadana uu soo kaxaystay baabuurkiisa isagoo aad u cadhaysan, isla xilligaasna uu galay shilka. Rachel aad ayay uga xumaatay wixii maalintaa dhacay. Matthew waxa uu u sheegay in hadda uu yahay mayd, goordhowna uu aadi doono meeshii loogu talagalay, waxaanuu sii macasalaameeyey iyada. subaxnimadii xigtay, ciidamadii ayaa soo daadgureeyey meydadka dadkii dhintay, waxaanay dul saareen qubuurahooda, sidaas ayayna ku baaba'een dhammaan dadkii soo noolaaday. haddaba daawadayaal waxaan soo gaarnay dhammaadka muuqaalka. fadlan haddaad ku cusub tahay channelka subscribe saar, sidoo kalena muuqaalka like saar haddii uu ka cajabiyey, sidaan u soo badino muuqaalo noocan oo kale ah. mahadsanid.